deegaanadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dad badan oo shacab ay iska degan yihiin qaarkood ay kiraysteen kirada ka qaataan qaarkood ay danahooda u isticmaalaan waxaan rabaa inaan ogeysiiyo in la baneeyo deegaanadii iyo guryihii xoogga dalka Soomaaliyeed guryahaas guryaha fara badan waaye waa in la baneeyo idaacadda mar hore ku dirnay waa lagu qoraa raadiyo muqdisho ama mataqaanaa SNTV waa lagu soo qoraa isagoo qoraal ah haddana warbaahinta oo dhan waxaa ka codsanayaa inay gaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed guryahaas ha laga baxo guryo fara badan waaye degmooyin fara badan ku yaala dadaa iska haysta dadaa iska isticmaala waddanahooda ee gaarka ah u isticmaala marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inay baneeyaan guryihii xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo ku yaala dadkaas waxaan u qabanay muddadaas waxay ahayd bishaan Juun kowda Juulaay wixii ka dambeeyo guryahaas waxaan ka saaraynaa qofkaan isaga bixin tallaabo sharci ah laga qaadaya annagoo kaashanayna ciidamada iyo hay-adaha amniga ee dowladda iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir guryahaas waxay ku yaaleen degmooyin fara badan marka waxaan codsanayaa dadka degan deegaanada xoogga dalka Soomaaliyeed guryahoodii siiba guryaha waa loo baahan yahay marka waxaan codsanayaa inay baneeyaan oo muddada bishan ka dhiman guryahaas ee banaanka ay ka noqdaan dibadda ay ka baxaan oo dibadda ka tagaan ciddii ka bixi weyso ama isku adkayso ciddaas shaqaga qabana guryaha dowladda hanti qaran waaye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iska waan u baahan yahay marka fadlan dadweynaha isagoo mahadsan inta haysato oo degan guryahaas hanooga baxaano iyagoo mahadsan degmooyinka waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha ammaanka inay gacan ugu siiyaan hawshaas markay bilaabato